Anas aad ayuu u walwalsanaa, mana uu doonaynin inuu ka qayb galo maanta tartanka. Maxay sheegaysaa maanta ma ka qayb gali rabtid tartanka miyaa? Uma malaynayo inaan samayn karo. Sidee hal bil dhan ayaa baraktiis garaynaysay si fiicanna waad u ciyaartay. Waligay ma arkin sida gitaarka adiga aad u garaacdo oo kale cid u garaaci karto. Ayay sidaas miyaad u malaynaysaa? Haa, sidaas ayaan u malaynayaa. Idinka sheekeeya wiil la oran jiray Jack sheekadiisa. Wuxuu sameeyey wax weligiis aan qofna ku fikirin. Beri baa waxaa jiri jiray laba wiil oo la oran jiray Jack iyo Lucy, waxayna ku noolaayeen tuulo u dhow Jarmalka. Jack wuxuu jiray 6 sano, Lucyna wuxuu jiray 10 sano, waxayna ahaayeen saaxiibo aad iskugu dhow, waxayna wada qaadan jireen waqti. Maalin maalmaha ka mid ah, sida caadada u ahayd, waxay aadeen meel ka fog tuulada. Waxyar kadib, ayaga oo iska ciyaaraya oo meelaha ordaya, ayaa Lucy wuxuu ku dhacay ceel. Wuu qayliya sababtoo ah muusan aqoonin dabaal, wuxuuna ka fikiray inuu ku dhex dhimanayo ceelkaani hadduu laqo. Jack aad ayuu u naxsanaa, wuxuu fiirfiiriyay meelaha si saaxiibkiis loo caawiyo, laakiinse cidna ma joogin meesha oo caawisa saaxiibkiisa. Si lama filaan ayaa Jack wuxuu ku arkay baaldi meel u dhow yaala ceelka uu ku xiran yahay xarig. Asaga oo waqti badan iska sii luminin ayuu wuxuu soo qaatay baaldigii, wuxuuna ku dhex tuuray ceelka. Wuxuu yiri, Lucy qabso baaldigaasi. Lucyna wuu qabsaday baaldigii. Jack wuu soo jiiday ilaa Lucy uu ka imaado bannaanka. Kadibna aad ayay u farxeen, hab ayayna isa siiyeen. Isla markii labadoodiba waxay u soo carareen xaafadda. Kadib markay yimaadeen, waxay u sheegeen wixii dhacay oo dhan dadkii tuulada deganaa iyo waalidiintii, laakiinse qof aaminaysaba ma lahan. Taasi wax aaminay ma lahan, sababtoo ah Jack wuxuu ahaa wiil yar, haddana aad daciif u ah, mana uusan qaadi karin xitaa baaldi biyo ku jiraan. Laakiinse waxaa aaminay adeerkood Peter, waayo wuxuu ahaa nin weyn oo xikmad badan, dadka tuuladana ay aaminsanaayeen hadalkiisa. Laakiinse dadkii tuulada waxay weydiiyeen odaygii siday macquul ku tahay waxaani. Wuxuu yiri, iyaga ayaaba idiin sheegaye, maxaad u aamini laadihiin? Tan la yaab idinku noqonin, waayo wiilka ceelka ayuu ku dhacay, asagana baaldiga ayuu ugu tuuray. Kadibna wuu soo jiiday, wuuna isku dayay inuu saaxiibkiis badbaadiyo. Sidaas ayuuna ku soo badbaadiyey. Marka ma ahan wax lala yaabo taasi. Xilligaasi ma joogin qof u sheegi kara inuu asaga sidan samayn karin. Asagana muusan u sheegi karin naftiisa inuu sidaas samayn karin. Waxa kaliya oo awoodda ku siin kara xilligaasi waa naftaada oo kaliya. Haddaad u malayn kartid inaad samayn karto, waad samayn kartaa. Dadkii tuulada deganaana waxay garwaaqsadeen qofkii naftiisa aamino oo ku kalsoonaada inuu wax walba samayn karo. Ayeeyadii waxay tiri, wiilkaygii oo hadda ma aamintay inaad samayn karto wax walbo? Haa ayeeyo, ayuu yiri. Sidaas ayay ku dhammaantay asxaabta sheekadeenna. Waa mahadsantihiin. Bye. Anas aad ayuu u walwalsanaa, mana uu doonaynin inuu ka qayb galo maanta tartanka. Maxay sheegaysaa maanta ma ka qayb gali rabtid tartanka miyaa? Uma malaynayo inaan samayn karo. Sidee hal bil dhan ayaa baraktiis garaynaysay si fiicanna waad u ciyaartay. Waligay ma arkin sida gitaarka adiga aad u garaacdo oo kale cid u garaaci karto. Ayay sidaas miyaad u malaynaysaa? Haa, sidaas ayaan u malaynayaa. Idinka sheekeeya wiil la oran jiray Jack sheekadiisa. Wuxuu sameeyey wax weligiis aan qofna ku fikirin. Beri baa waxaa jiri jiray laba wiil oo la oran jiray Jack iyo Lucy, waxayna ku noolaayeen tuulo u dhow Jarmalka. Jack wuxuu jiray 6 sano, Lucyna wuxuu jiray 10 sano, waxayna ahaayeen saaxiibo aad iskugu dhow, waxayna wada qaadan jireen waqti. Maalin maalmaha ka mid ah, sida caadada u ahayd, waxay aadeen meel ka fog tuulada.
waxyar kadib ayaga oo iska ciyaaraya oo meelaha ordaya ayaa Lucy wuxuu ku dhacay ceel. Wuu qayliya sababtoo ah muusan aqoonin dabaal, wuxuuna ka fikiray inuu ku dhex dhimanayo ceelkaani hadduu laqo. Jack aad ayuu u naxsanaa, wuxuu fiirfiiriya meelaha si saaxiibkiis loo caawiyo, laakiinse cidna ma joogin meesha oo caawisa saaxiibkiisa. Si lama filaan ayaa Jack wuxuu ku arkay baaldi meel u dhow yaala ceelka uu ku xiran yahay xarig. Asaga oo waqti badan iska sii luminin ayuu wuxuu soo qaatay baaldigii wuxuuna ku dhex tuuray ceelka. Wuxuu yidhi Lucy qabso baaldigaasi. Lucina wuu qabsaday baaldigii. Jack wuu soo jiiday ilaa Lucy uu ka imaado bannaanka. Kadibna aad ayay u farxeen, hab ayayna isa siiyeen. Isla markii labadoodiba waxay u soo carareen xaafadda. Kadib markay yimaadeen waxay u sheegeen wixii dhacay oo dhan dadkii tuulada deganaa iyo waalidiintii, laakiinse qof aaminaysaba ma lahan. Taasi wax aaminay ma lahan, sababtoo ah Jack wuxuu ahaa wiil yar, haddana aad daciif u ah, mana uusan qaadi karin xitaa baaldi biyo ku jiraan. Laakiinse waxaa aaminay adeerkood Peter, waayo wuxuu ahaa nin weyn oo xikmad badan, dadka tuuladana ay aaminsanaayeen hadalkiisa. Laakiinse dadkii tuulada waxay weydiiyeen odaygii siday macquul ku tahay waxaani. Wuxuu yidhi iyaga ayaaba idiin sheegaye, maxaad u aamini laadihiin? Tani yeelayaab idinku noqonin, waayo wiilka ceelka ayuu ku dhacay, asagana baaldiga ayuu ugu tuuray. Kadibna wuu soo jiiday, wuuna isku dayay inuu saaxiibkiis badbaadiyo. Sidaas ayuuna ku soo badbaadiyey, marka ma ahan wax lala yaabo taasi. Xilligaasi ma joogin qof u sheegi kara inuu asaga sidan samayn karin. Asagana muusan u sheegi karin naftiisa inuu sidaas samayn karin. Waxa keliya oo awoodda ku siin kara xilligaasi waa naftaada oo keliya. Haddaad u malayn kartid inaad samayn karto, waad samayn kartaa. Dadkii tuulada deganaana waxay garwaaqsadeen qofkii naftiisa aamino oo ku kalsoonaada inuu wax walba samayn karo. Ayeeyadii waxay tiri wiilkaygii oo hadda ma aamintay inaad samayn karto wax walbo. Haa ayeeyo, ayuu yidhi. Sidaas ayay ku dhammaantay asxaabta sheekadeenna. Waa mahadsantihiin. Bye.